dowladda hoose xamar ayaa maanta degmada wadajir ka hirgelisay xarun lagu baaro tayada qalabyada dhismaha si dhismooyinka magaalada muqdisho ay u noqdaan kuwa tayo leh oo aysan dhibaato kala kulmin bulshada. waxaana xaruntani xarig ka jaray kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gobolka mudane Xuseen Maxamed Nuur iyadoo ay goobjoog ka ahaayeen xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka iyo madax kale. mas-uuliyiintan maamulka gobolka Banaadir ayaa kormeeray qeybaha ay xaruntani ka kooban tahay iyagoo u kurgelayay hawsha ay qaban doonto xaruntani waxayna warbixin ka dhageysteen howlwadeena ku takhasusay arrimaha dhismaha. kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xogayaha guud ee maamulka gobolka ayaa sidoo kale kormeeray warshad soo saarta agabyada dhismaha oo ay dowladda hoose xamar ku holan tahay in dib loo kiciyo. intaasi kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir sheebaar loogu talagalay in lagu hubiyo quality-ga ama tayada ay leedahay alaabaha ama haddii noqoto birarka haddii noqoto bulkeetiyada wax walba oo quseeya dhismaha maadaama magaalada Muqdisho ay tahay magaalada sii horumarayso ujeedada gobolka iyo maamulkana uu leeyahay ay tahay in la hubiyo magaaladan caasimadda waxyaabaha laga dhisay inay yihiin tayadii u qalantay in ay magaaladan ay hesho. Nuur Saciid Taaliil warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.